Esomali-com warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada waa casharkii taxanaha ahaa Windows 10. maanta casharkan waxaan ku eegaynaa sida computer kale loogu soo project garayo, oo macnaha waxa iskiriinka ama monitorka computerka saaran kan loo soo saara waa wireless projection. si macnaha wireless ah waxaad samayn kartaa computerkaagan aad hadda isticmaalaysid ama device computer yana oranay waa device kasta ama computer ha ahaado ama phone ha ahaado ama wax kale ha ahaado, waxa saaran oo iskiriinkaaga ayaad computer kale ka soo saari kartaa adigoo isticmaalayo projection aan isticmaalayn macnaha waxyaalaha oo remote connection iyo wax kale. marka si taas kugu suurta gasho waxaad samaynaysaa marka ugu horeysa waa inaad optionkaas aad oo on ka dhigtaa. marka waxaad samaynaysaa waxaad tegaysaa start, waxaad tegaysaa settings, system, project to this PC. markaas micnaheedu waxaa projecting to this PC computerkaas kale ama device-kaas kale ama telefoonka screenkiisa waxa saaran ayaa kan ka soo saari kartaa. si ay taas suurtagal u tahay marka ugu horeysa option kan inuu on yahay weeye. some Windows and Android devices can project to this PC when you say it's okay. mar walbana macnaha si automatiga uma soo galayo oo waa inaad adiga permissionkaas siisaa oo waxaad leedahay. marka waxaad arkaysaa inuu qof computerkaaga screenkaaga uu projection kusoo sameynayo oo wax ka soo saarayo. marka option aad diidid ama ogolaatid ku siinaya. kalgan waxay oranaysaa available everywhere. micnaheedu waxa weeye device kasta oo kusoo xiran kara wirelessly waad u ogolaanaysaa inuu kusoo xirto computerkaaga. haddii aad ka dhigtid available everywhere on secure network, waa networkyada secureka markaasoo macnaha amnigooda fiican yahay keliya, ama se offaaba ka dhigi kadhaa waa diidi kadhaa. markaas awood uma yeelanayo inuu computer kusoo xirto monitorkaaga uu projection kusoo sameeyo. optionkan kale oo sida adiga rabtid markaas inaad u controlshid ask to project to this PC every time oo qof projection kusoo sameeyo computerkaaga, waxaad optionkan haddaad aad select garaysid ama aad xulatid mar walba qof projection soo sameeyo adaa u ogolaanaysid. haddii aad tirahdid first time marka ugu horeysa bes weeye markaasaad ogolaanay. marka wixii ka dambeeyana mar walba si automatica ayuu projectionkaas usoo baxaya. marka haddaa adiga computerka leedahay waad samayn kartaa first time marka ugu horeysa ku weydiinayaa inuu projectionkaas soo sameeyo. wixii markaas ka dambeeyana waxba ma weydiinayo, wuu ka soo saaraya. tan qaybta orange require pin waa number aad gelin karaysi oo password ahaan. haddaa rabtid mar walba computerka projection soo sameeyo inuu qofkaas pin geliyo waa samayn kartaa. first time aa ka dhigi kartaa, mar walba ka dhigi kartaa, ama se pin la-aana kusoo gelin kartaa. marka si aan taas idin tuso hadda waxaan sameynayaa computer kale ama device kale oo Windows 10 ayaan projection kusoo sameynaya oo computerkan screenkiisa kusoo xiraya. inuu computer ahaado ama Windows 10 device ahaadana necess macnaha muhiim maahan, oo telefoon kasta iyo Android ha ahaado ama wax kale ha ahaado waad kusoo xiri kartaa. oo waxaa jira qayba optionna kale oo mar walba projection kusoo sameyn karid ayaa jira. marka si aan taas idin tuso hadda waxaan soo sameynayaa projection ayaan soo sameynayaa si aad u aragtaan si computer kale projection looga soo sameeyo. marka computerka kale waxaan sameynayaa waxaan tegayaa horey sidaan idiin soo sheegay wireless connection oo cashar horaan kusoo qaadanay sida screenka wirelessly projection loogu soo sameeyo. system haddaad tagtid markaasaad tagtid display halkan wuxuu ku siinayaa connect to a wireless display. marka kaas markaad taabatid wuxuu ku siinayaa option oo ah computerada ama device-yada aad ku xiri kadid oo computerkaaga projection ahaan ugu xiran kadid. marka taasaan soo sameynayaa waxaana ka soo sameynayaa
device kale oo ah Windows 10 waxaan tegayaa device kan kale waxaan ka tegayaa wireless display ka waxaan connect markaan connected wuxuu ii soo saaray magaca computerkayga magaciisa uu ii soo saaray markaan gujiyo taas hada halkaan ka soo saaraya wuxuu ii sheegayaa inuu qofkan Cabdi connect to project is attempting to project it to this computer marka waxaan oran karaa markaas waan bloggarayn karaa mar walbaan ogolaan karaa hadda warkan kaliya ogolaan karaa markastaan bloggarayn karaa marka haddaan okay dhaho aan ogolaado macnaheedu waxa weeye computerkaas kale wixii saarnaa baa soo baxay hadda screenkan ma ahan computerkan aan isticmaalayo ma ahan waa kan kale waan projection ka soo sameeyay waxa screenkiisa saaran weeye marka waxaan sameeyay wireless connection aan tagay magaca computerkan oo hadda aan horey u isticmaalayay kan uu ahaa marka saasaan sameeyay marka haddaa fiirisid hadda computerkan aan hadda screenkiisa fiirinayo ma ahan kaygii hore aan isticmaalayay waa mid kale oo haddaan magaciisa fiiriyo I can type magaciisa haddaan fiiriyo ma ahan kaygii hore waa kan oo projectionka soo sameeyay weeye marka sidaas ayaa loo sameeyaa projection oo macnaha iskiriinkaaga waxa saaran computer kale screenkiisa uga soo saaran karaa adigoo isticmaalaya wireless projection marka haddaan dib uga noqdo haddaan hadda dhaho disconnect aan ku sameeyo hadda waxaan ku soo noqday computerkaygii hore aan isticmaalay magaciisa haddaan fiirsho isku magac maahan spider tip ayaa la dhahaa kan marka saasaa loo sameeyaa muhiimadda waxaa kaloo muhiima si aad projection usoo sameysid oo computer kale wax saaran aad halkan uga soo saadid optionkan inuu on yahay uu shidan yahay haddii aadan optionkan on ka dhigin markaa qofkaas markuu wireless connection uu isku dayo inuu soo sameeyo awood uma yeelanayo waayo computerkaaga maba arkayo oo optionkan wuxuu odhanayaa computerkayga u ogolow inuu ka soo baxo computerada kale oo raadinaya oo macnaha isku network ku xiran yihiin wirelessly same macnaha network oo isku mid ay ku xiran yihiin u ogolow marka ogolaanshahaas inaad siisid oo on ka dhigtid waa muhiim intaa optionadan kalena kii aad adiga rabtid dooratid marka casharka intaasaan ku joojinayaa oo ah sida loo sameeyo wireless projection computer kale loogu sameeyo ama waxaa screenkaaga saaran aad u jeedid inaad computer kale ama device kale aad ka soo saartid loo sameeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi